رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. How to record إن شاء الله ولا لي غير النقطة. السلام عليكم. إن سلامتكم بلا ويهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ولا لي waxaan soo gaarnay maanta 10 oo ka sheekeynayo how to record when the customer apply your invoice your sales order. I mean macnaha hadii aan fududeeyo waxay ahayd أول sales order baan qornay customer baa wuxuu noo soo qoray purchase order markuu noo soo qoray kadib anagana sales order baan u diyaarinay amiin waa u diyaarinay oo sii dhignay okay marka waxaan leenahay marka customer-ka hadduu sales order kaaga apply gareeyo amiin oo ogolaado oo ku dhaho dee ii soo qaad alaabta ama ii soo saar gaariga sidee marka la yeelayaa see loo record gareynaya aan fiirino marka totally waxaa sameysaa kan iska soo deji kuwayga buugeena noo kici kuwayga buugeena cashirka waa bilaabayna insha allah sales orderka sidii aan purchase orderka aan samey jirnay ayaan u sameynaynaa laba wadiiqad ayaa lagu gaari karaa first inaad sales orderka tagto marka ugu horeysa sales order tagto waa wadada koowaad aad halka ka raaysid wix sales order ah hadii kale inaad iska kansashidba sideed banaanba inaad iska kansashidba iska kansashid daaqadan oo aad sameysid inaad customer center ka tagtid customer center ka waa kan ama halkaas ka gaari karto labada option adiga leh ama inta ama halka customer center markaad tagto aad aragto wixii sales order ah sidee ku arkaysaa waad raadinaysaa sales order burhaan waa kan xasan vision wanaat waa invoice tawfiiq company waa mid naga soo qaldoomay waan anaga hadda soo sheegnay hore oo soo sheegnay okay nadiifo jaamac waa sales order waa kan nadiifo jaamac marka waxay tiri waxay ka mid noqotay customerada anaga sales order keena apply gareey marka nadiifo waatan sales order ka fiir hadda nadiifo balance-ga waa 0 nadiifo balance-geeda waa 0 wax aan ku leenahay malaha laakiin alaab bay naga dalbatay kaliya alaabtu wali ma gaarin okay fiir marka iska soo deji kan nadiifo waa haysaa Soomaa iska soo deji fiir jaarta fa konti ay tag waxaan rabaa horta first inaan waxyaabo hubiyo 230 iyo 870 ila hubiya waa 233 waa inventory-ga okay deenta shirkadda ka maqan oo meeqo waa 8569 okay calculator aan soo la soo baxno hoosha waxaan rabnaa in macna calculator-ka waxba ima qabanayo laakiin waxaan rabaa inaan xisaabahan ku qorto si adinkana aad hadhood iloobisan 8569 okay mar labaad calculator kale waxaan rabaa inventory-ga lacagta inaan ku qoro asagana muxuu ah asagana waa 233870.79 kan waa maxay waa inventory-ga noo yaal okay waa 233870 okay marka sales order-ka xareeyo marka maxaa dhacaya marka sales order-ka xareeyo maxaa dhacaya fiir marka okay customer center ka tag waa ka inta ka gaari kartaa daarto nadiifo ahayd nadiifo waa kan okay 2800 nadiifo alaab banaga dalbatay oo qiimaheeda ay tahay 2280 okay marka waxaa rabtaa nadiifo applied as invoice na usmeys applied as invoice macnaha waa maxay cashirka hadaan ku laabano iga raali noqda macnaha waa maxay waa how to record when a customer when a customer apply your sales order I mean halka waxa ku qoran as macnaha hadii oo ogolaatay sales order ka way ogolaatay aad isu dhiib way marka waxa sameynaysaa invoice oo bedelaysa hoosh our sales order buu ahaa invoice oo bedelaysa habka loo bedelo marka waa kan cashirkan uu soo celiyo waa kan nadiif marka double click siinaysa wuxuu geenay mesh sales order ka soo gelinaysa okay sales order fiiri invoice 0 baa halkan qoran invoice waa maxay waa 0 because already wax dalabkum bay sameeyeen wali lacag alaab macnaheedu wax alaab ah ma aysan gaarin wax alaab ah wanaga dalbatay kaliya laakiin wali wax alaab ah uma dhiibin okay
marka halka imaadid ba waxa leedahay create invoice fiiri create invoice ba click siinaysa message kan uu ku soo dhigay message kan akhri muxuu ku leeyahay create invoice for all sales order may create invoice for select item or in all sales order waa maxay waa dadkii oo dhan ba suma like select item waxa ka dooratay waa already waa mini waxa laga wadaa create invoice hadii aan ku laabano mar labaad fiiri mar labaad aan ku laabanayo fiiri create invoice marka dhahdo waa maxay hadii all item ina waa maxay hadda waa motherboard clear hoosh hadda waa motherboard okay macna waxaan possible ah door item inay dalbatay doorka item ee dalbatay marka hadii aad all kan option ka kore aad doorato already waa bedelaya hadda kan dooratana waa maxay wuxuu ku geenayaa daaqad kale daaqadan kale ayaa ka dooranaysa mid hadda midna waa maxay motherboard kan kale dooro kan kale kan kale dooro mid kale okay laakiin aad doorato already alaabta ee dalbatay oo dhan because inta maxaa lagu yiri dhageyso inta sababta lagu yiran ku sheegay kaaga dhaadhicinayo waliba tusaale nadiifo waxay dalbatay waan arki doonaa waan ka soo shaqeyn doonaa idoo example toos baan arki doonaa nadiifo waxay dalbatay motherboard waxay dalbatay telephone waxay dalbatay memory waa different item okay at the same time nadiifo markay inta alaab ay dalbatay waxay dhahday aniga alaabta macna inta alaab markay dalbatay invoice ka sales order kan markuu gaaray she applied way aqbashay okay marka QuickBook yaa u sheegayo sheegay aqbashay in loo sheego sama marka isaga hadda wuxuu ku leeyahay marka alaabta ee dalbatay oo dhan miyaan kaaga dhigay invoice mise adiga ayaa hal u dooranay waa ka hadda all iga dhiga dad already kulli u bedelaya waa ka fine okay waa meeqa shay 12 xabo 12 xabo miya dalbatay hadii ha aadaaday already fiiri 2208 waxay ku darsamaysaa safe and already hadda fiiri lacagta damage zero ahead hadda laakiin already lacag baa lagu leeyahay ogow okay soo laabo waxa soo laabata jaarta fakoontiga u soo laabo jaarta fakoontiga waa kan 2800 waxay ku darsantay 2800 waxay ku darsantay halkan fiiri awal meeqo ahaa awal deed shirkada ka maqan intaas buu ahaa oo lagu daray 2200 waa ka I mean أول أنت أول حقها شنكون بوها دقيسة كوسو عليه أول حقها شنكون سال بقول اللحظة أيوة أهم شنكون سال بقول اللحظة something like that لبيع وحبار عسنا حتى لكن وطمون كفير already وكررت أوكي inventory الموقع أها فيري inventory وحبار كجوي ما حاجة جوي فيري مينز نه ما حاجة جوي على العقبة كجوي وموقع أها أول wuxuu ahaa 190 ayaa siisay qiimo ay ku fadhiyo qiimaha uu ku fadhiyo I don't know ma garanayo laakiin already waxba ka go'ay way fiir marka income kaagan already waa ziyaad sababtoo ah invoice waa xaris invoice doo xarisay waxyaabaha kordhay waa la sheegay hore u soo sheegnay kuma naqnaqanayno waxyaabaha kordhay waa la sheegay fiir hadda already markaad ku dhufato sales kaaga fiiri lacagta ugu dam waa nadiifo jaamac 2800 ayaa ku soo darsantay income kaaga 2800 ayaa ku soo darsantay cost of goods sold ku dhafa double click si fiiri isagana 870.71 ayaa nadiifo xageeda kaga soo gashay okay marka inventory waxa ka go'ay meesha waxa ka ogaanaysaa inventory intaas ka go'ayso okay inventory waxa ka go'aysa intaas ka go'ayso awal meeqo ahaa calculator ka soo saar fiiri arag okay calculator I'm sorry iga raalna ka ma aha calculator ka soo saar calculator ka waa ka awal wuxuu ahaa 233.870.79 oo laga jaray 877.71 okay fine marka inta dhaado maxaa soo baxay 32000 wayna soo baxday inventory jaarta fakoonta toos noo geey jaarta fakoonta waawe jaarta fakoontin waa kan lacag soo baxday isku fiir waa kan okay laba meeqo way 232 kuma haysa ha 993.8 ma haysa ha waa ka ma fahamtay marka inta sa inventory ka go'ays waxa ku darsamay cost of goods sold okay totalka oo galay deenta shirkadda ku soo darsantay oo 2280 waxay galaysaa income waa ka net
not macnaha wuxuu galayaa not sale-ka sales-ka la gaday oo na ayuu galayaa waxaan umaleynaa cashirna fahanteen how to apply invoice okay mid waxaan sameynaynaa markaa sug hadaa waan sheegnay mid baan waxaan sameynaynaa difference item ayaa qof ayaa soo dalba doono waa maxaabe waa sales order customer kimo okay sales create sales order waa kan okay fine sales order so tusaale Siham Mohammed waa yahay waxay dalbatay motherboard memory laptop 10 xabo waxaan ka siinay 9,000 okay motherboard bay dalbatay memory desktop bay dalbatay oo asana 12 xabo I'm sorry kan memory markasta ma yaala laakiin waan soo dhigi doonaa insha Allah okay waan soo dhigi doonaa insha Allah marka ka tirtir waxaan ka soo qaaday internal hard disk ay dalbatay ink printer bay dalbatay oo ah 12 xabo waxaan ka siinay $100 waxay kala dalbatay internal hard disk oo 10 xabo waxay ka siinay $70 okay so saale safe and close le marka okay hadda alaabtan waxba kama go'in waxna kuma darsoomin waa sales order baan joognaa wali ma aragtaa sideed waa wax kasta waa siis okay marka Siham waxay dhahday invoice-ka sales order-kiina waa soo gaaray waa apply gareeyay ee alaabta la soo saaro okay ayna bay dhahday wali kuway buuga lama gelinin kuway buugana shayga Siham ka dalbatay way wax laga yaabaa dhorka sales order-ka u dirnay oo customer-keena Siham aan u dirnay waxa possible ay dhahdo war motherboard-ka ama memory clear la soo maray inta kala dib ha leegu dhigo waa option waxay oran kartaa dhamaan ha la soo dhigo waa option waxa possible inay dhahdo ya dhamaan la soo dhiibinay waxaan rabaa in yar in la soo laba shay ama saddex shay laga soo dhiibo ma fahanti so customer center-ka tag customer center-ka marka tagtid ka haay Siham kone Siham Mohammed this is Siham Mohammed sales order ka marka double click siinaysa fine marka sales order click asiisid waa kan apply invoice marka dhahay already warqadii ku keenay hada all dhaho fiiri already kuloo wada bedelaya laakiin das invoice dhaho create invoice for select item waa kan halkan ay soo dhigay kan i door iyo kan ma fahanti kan doorto marka ma fahanti kan kaliya inta ordaan kan inta printer ko ka dhigay fiiriya inka printer baan doortay okay aan dhahay fiiri inka printer kaliya ayaa meesha imaanay marka I mean shayga la doorto mooyaane shay kale ay meesha ma tagayo waa ka fiir sales order ku dhufo maxaan ku yeeray create invoice marka ku dhufatid select for item dheh intaas markaan dhaho waxaan maleynaa cashirkana fahanteen hal xabo macna I mean just same marka Siham waxa leedahay oo iska dheh yaanu ku wareerin cashirka yaanu ku naqnaqanin marka all dhahdid dhag dan waxaan leedahay save and close intaan Siham okay waxa ku darsoomaysa 2,800 ay invoice-kan ku darsoomayso I mean deed shirkada waa ka Siham inta lagu leeyahay waa ka already cashirka waa fahanteen walaal how to apply sales order to invoice cashirka inta soo nagu ogaayay anigoo